Assalaamu calaykum kulanti wanaagsan kuna soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay oo National TV idin hayo. Villa Soomaaliya oo madaxweyne Cali Guudlaabe u dhigtay shirqool uu ku lumin karo sumcadiisa. Cadaadis xoogan oo la saaray Cali Guudlaabe iyo qorshe ka socda Villa Soomaaliya ayaad warkeena ku daawan doontaan. Xildhibaan Fahad Yaasiin oo si carbuuntay xil culus in loo magacaabo dawladda cusub ee soo socota. Qodobada kale ee wararkeena aad ku daawan doontaan waxa kamid ah gudoomiyaha gobolka Gedo oo weerar culus ku qaaday ra'iisul wasaare Rooble iyo guddigii uu dhawaan u magacaabay arinta Garbaharey. Doorashada ka dhacaysa Garbaharey oo halis ku jirta iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa daawan doontaan. Sidoo kale waxaad warkeena ku daawan doontaan wararkii ugu dambeeyay doorashada golaha shacabka ee lagu qabanayo magaalada Boosaaso iyo qabanqaabadii ugu dambeysay oo ka socota halkaasi. iyo guddigii ra'iisul wasaare Rooble u magacaabay arinta doorashada Garbaharey oo tagay magaalada Kismaayo. Qodobadaasi iyo kuwa kale ayaan faahfaahin doonaa. waa habeen Arbaca Khamiis ayaa soo galaysa 2 Maarso sanadka 2022. haddaad nagu cusub tahay subscribe saar YouTube-keena kadibna furo gambaleelka si wararkaan halkan soo dhigno aad u hesho. haddaad aragtidaada noo reebto waan kaaga mahadcelinayaa. u diyaar garoowa faahfaahinta wararkaasi. markale kulanti wanaagsan aan ku bilaabo warkeena. madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaabe Xuseen ayaa wajahaya cadaadis xoogan oo kaga imaanaya madaxtooyada Soomaaliya oo ku aadan inuusan liiska murashaxiinta xildhibaan ku soo dirin xildhibaan Aamino Maxamed Cabdi. kursiga hoob 135 oo ay ku fadhiso Aamino Maxamed Cabdi loona yaqaan kursiga cadaaladda ayaa kamid ahaa 11 kursi oo guddiga doorashada Hirshabelle shaaciyeen kuwaasi oo lagu dooran doono magaalada Beledweyne. hase yeeshee sidaan xogta ku helnay waxaa jirta cabsi xoogan oo ku aadan in xildhibaan Aamino Maxamed Cabdi ay kursigaasi weyn doonto ayada oo Villa Soomaaliya ay ka go'an tahay inaysan dib u soo laaban. dagaalka madaxtooyada ee ka dhanka ah Aamina ayaa ka dhashay cadowtooyo ay xildhibaanada ugu qaadeen sida ay dagaalka ugu gashay inay cadaalad hesho Ikraan Taaliil Faarax oo ah gabar ka tirsanayd hay'adda sirdoonka Soomaaliya ee NISA oo la leeyahay muddo 8 bilood ah taas oo dilkeeda lagu eedeeyay saraakiil ka tirsan hay'addaasi. xildhibaan Aamino Maxamed Cabdi oo Ikraan Taaliil ku matasha baarlamaanka kana soo jeeda beesha Gaaljecel ayaa muddadii aad ka markaasi loo hadalhayay kiiskan ay ahayd isha kaliya ee xogta siisa shacabka iyo warbaahinta aadna u garab taagnayd qoyska Ikraan Taaliil. waxay sidoo kale si aad ah u dhaliili jirtay madaxtooyada iyo hay'adda NISA oo ay ku eedeysay inay Ikraan ku maqan tahay gacantooda. sidaan ogaanay Villa Soomaaliya ayaa kursigan u rabta Cumar Faaruq Cusmaan oo ah xogayaha ururka Nusoj ee suxufiyiinta Soomaaliyeed. si kastaba beesha Gaaljecel ayaa la rumaysan yahay inay 100% garab taagan tahay xildhibaan Aamina inkastoo aan la ogeyn haddii taasi ay Cali Guudlaabe ka hor istaagi doonto inuu u hogaansamo rabitaanka Villa Soomaaliya. xildhibaano aqoon-yahano iyo siyaasiyiin badan ayaa ka digay in Cali Guudlaabe uu sumcadiisa ku dhaawici karo haddii aanu liiska ku soo darin xildhibaan Aamina oo taageero badan ka haysata shacabka Soomaaliyeed iyo beesheeda. Guudlaabe wuxuu wajahayaa tijaabo la marinayo shakhsiyadiisa iyo hogaanimadiisa. ceeb weyn ayuu la kulmi doonaa haddii uu Villa Soomaaliya ka aqbalo in la tuuro xildhibaan Aamina ayuu yiri xildhibaan la hadlay warbaahinta oo codsaday inaan la magacaabin. xildhibaan Aamina ma haysato taageerada beesheeda kaliya balse waxaa raacsan shacabka Soomaaliyeed oo dhan ayuu hadalkiisa sii raaciyay. wixii ku soo kordha xogtan iyo qorshaha socda wararkeena soo socda ayaad ku daawan doontaan. waayahay qaybaha hore ee wararkeena ayaa daawanaysaan. wararkeena kale haddaan eegno Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo la ogyahay in la hor istaagay sax ahaanshiyaha kursiga golaha shacabka ee toddobaadkii hore ku soo baxay ayaa haddana waxa uu sii carbuuntay xil uu ka qaban karo dawladda cusub. kursiga sumadiisu tahay hoob Ewer 86 uu ku soo baxay Fahad Yaasiin ayaa la diiday waxaana la amray in kor loo hayo natiijadiisa balse isaga ayaa ku adkeysanaya inuu si sharci ah ku guuleystay beeshiisana ay taageero u tahay. wasiirka gargaarka iyo maareynta musiibooyinka xukuumadda Soomaaliya Khadiija Diiriye ayaa si aan gambasho lahayn u sii sheegtay in gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya uu yahay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. dad badan ayaa shaki ka qabay arintaasi inay dhici karto
balse waxay Khadiijo hadalkeeda sii xoojinaysaa sida ay nabad iyo nolol u doonayso xasaanad inay uga safto shakhsiyaadka ay markaasi isleedahay culays ayaa wajahaya. tani ayaa loo fasiran karaa in awood ahaan guddoonka baarlamaanka ay la wareegi doonaan nabad iyo nolol marka loo eego Mursal, Fahad iyo Mahad Cawad haddii aysan xisaabta sida la isugu dhuftay ay wax iska bedelin. haddii sidaasi ay dhacdo waa mid iska cad in farmaajo xukunka dalka lagu soo celin doono maadaama aqlabiyadda baarlamaanka ay saaxiibadiisa ku fadhiisanayaan shukaamin codka mudanayaasha golaha shacabkana ay olole uga dhex samayn karaan. markasta National TV ayaad nagala socon kartaa. subscribe saar kanaalkeena kadibna furo gambaleelka si wararka aan halkan soo dhigno aad u hesho. gudoomiyaha gobolka Gedo Axmed Buule Gareed oo shir jaraa'id ku qabtay Muqdisho ayaa ka hadlay xaaladda Gedo iyo tallaabadii uu qaaday ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo guddi u xil saaray doorashada gobolkaasi. Axmed Buule ayaa ka hor yimid guddiga uu magacaabay ra'iisul wasaare Roble ee loo saaray inay ka soo tala bixiyaan in doorasho ay ka dhici karto magaalada Garbahare. gudoomiyaha ayaana ku dooday in doorashadu leedahay 3 guddi oo wada shaqeeya. doorashada 3 guddi ayay leedahay sida sharciga ah waa guddiga doorashada ee heer federaal, waa guddiga xalinta khilaafaadka iyo guddiga heer state. 3daasi waaye guddiyada doorashooyinka ayuu ku yiri shirkiisa jaraa'id gudoomiyaha Gedo. Gareed ayaa sidoo kale su'aal ka keenay doorka gudoomiyaha guddiga oo loo magacaabay Abukaata Cumar Dhegey maadaama uusan qayb ka ahayn guddiyada doorashooyinka. waxaad noo soo dirtay ra'iisul wasaare 3daasi qof aan ahayn ninka la yiraahdo Abukaata Cumar Dhegey ilaa hadda meel uu ka socdo iyo hawl uu qabanayo iyo door uu ku leeyahay doorashada ma garanayno mana naqaano ayuu hadalkiisa sii raaciyay. sidoo kale gudoomiyaha Gedo ayaa inta ku daray reer loo diray Cumar Dhegey meeshaasi meel ay wax ka soo baxayaan ma aha. Cumar Dhegey dadka reer Gedo waa nin aad u nacab. ugu dambeyn gudoomiyaha gobolka Gedo ayaa shaaca ka qaaday in mas'uuliyad dara kasta oo ka timaada doorashada Garbahare inuu qaadayo ra'iisul wasaaraha dalka. Gedo waxaa ka taagan murano xoogan oo hareeyay kuraasta taala Garbahare kadib markii ay Jubbaland ku dhawaaqday in aysan doorasho ka dhici karin halkaasi. dhinaca kale guddiga hirgelinta doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubbaland Siid iyo wasiire ka tirsan Jubbaland ayaa garoonka diyaaradaha Sayid Maxamed Cabdulle ee magaalada Kismaayo waxay ku soo dhaweeyeen wafdi uu hogaaminayay gudoomiyihii guddiga uu maalin ka hor magacaabay ra'iisul wasaare Roble. gudoomiyaha guddiga qiimeynta xaaladda deegaan doorashada labaad ee Jubbaland Garbahare Abukaata Cumar Maxamed Cabdulle Dhegey iyo xubno ka tirsan guddiga uu dhawaan magacaabay Roble ayaa halkaasi gaaray. Cumar Maxamed Cabdulle iyo wafdigiisa waxaa qayb ka ah xubno ka socday golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya, wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta Cabdiraxmaan Al-Cadaala, wasiirka waxbarashada Cabdullaahi Carab iyo xubno kale ayaa iyagana biri ku wajahan Kismaayo isla markaana waxay ku biiri doonaan wafdiga maanta halkaasi tagay. guddigan oo ay ka dhiman yihiin xubno kale oo ka mid ah guddiga uu magacaabay Roble ayaa lagu wadaa in xubnaha ka dhiman ay yimaadaan Kismaayo maalinka berita ah iyagoo kadib ambaqaadi doona howlaha horyaala ee markaasi loo igmaday. waxa ayna qiimeyn ku soo samayn doonaan deegaan doorashada labaad ee Jubbaland ee Garbahare. ugu dambeyn haddaan eegno doorashada 16 kursi oo ka mid ah kuraastii ugu horeeyay ee ay deegaan doorashadoodu tahay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa qorshe u yahay in 5 iyo 6 bishan Maarso lagu qabto magaaladaasi. guddiga Siid ee Puntland ayaa goorsii horeysay shaaciyay duubabka dhaqanka iyo wakiilada bulshada rayidka ee soo xulaya ergada dooranaysa 16 kursi ee deegaan doorashadoodu tahay Boosaaso. guddiga ayaa sidoo kale sheegay in odayaashan iyo xubnaha matalaya bulshada rayidka ay iska kaashanayaan soo gudbinta ergada beelaha leh kuraasta doorashadoodu lagu qabanayo Boosaaso. waxaa magaalada Boosaaso ka socda diyaar garowgii ugu dambeeyay ee doorashada kuraastaasi ayada oo maanta ay halkaasi kormeer ku tageen xubno ka tirsan guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal ee FID. xubnaha ka socday guddiga FID oo uu horkacayay Afhayeen Axmed Safiina ayaa warbixin la xiriirta goobta doorashada loo qorsheeyay ka dhageystay guddiga doorashooyinka dadban ee maamulka Puntland.
goobta lagu qabanayo doorashada ayaa ah teendho ku taalla garoonka diyaaradaha Boosaaso, waxaana ammaankeeda lagu wareejiyey ciidan gaar ah oo booliis ah kuwaas oo loo tababaray ilaalinta nabadgelyada maalmaha doorashada iyo howlaha hoostaga. si kastaba guddiga Siid ee Puntland ayaa maanta qabtay araajida iyo diiwaangelinta murashaxiinta u tartamaya kuraastaasi ayada oo shahaadooyinka la siiyey murashaxiinta soo buuxiyey shuruudaha maalin ka hor bilowga doorashada. waayahay halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa warkii aad ka daawanayseen barteen YouTube-ka ee National TV. waad ku mahadsantihiin daawashada iyo la socodka wararkeena ee nabadgelyo.